150 qof oo kamid ah wufuudi ka soo qayb gashay shirweynaha maalgashiga ee deegaanka Soomaalida ee ka soo kala jeeday Somaliland, Soomaaliya, Puntland iyo Kenya ayaa maanta casuumad loogu sameeyay magaalada Dhagaxle ee degmada Gursum ee gobolka Faafan. Intii aan casuumad waxay waftigu soo booqdeen warshadaha caanaha iyo biyaha ee magaalada Dhagaxle, halkaasi oo hadallo kooban ay ka jeediyeen mulkiilayaasha warshadahaasi. Waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya warshadaha iyo wax soo saarkooda. warshadu wax soo saarkeedu waxa caanaha geela iyo lo'da labadaba oo dheydkooda ay ka dhigayso 6 bilood UST ay ka dhigaysaa saacadiina wax soo saaraysaa 2,000 litir halkii saac 2,000 litir bay soo saaraysaa. geeli iyo lo'da waa kala gaar haamahooda saartaanba waa 4 haamood, laba ku geela iyo labadii lo'da kuwa weyn arki doontaan insha Allah. UST caaniimniyo kala weeyaan almaraaciga furkoodii kartoonkoodii kulli waa arkaa insha Allah. dheydkooduna 6 bilood ilaa 9 bilood bay ka dhigaysaa. Istihab Food and Industry PLC run ahaantii warshadan asaaskeedu wuxuu bilaabmay January 2020. warshada asaaskeedu wuxuu bilaabmay 2019 waxaan gabagabeynay 2021 January oo bishana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala toddobaad kadib inay shaqada bilowdo. haddii aan background yar idinka daabto warshada iyo asaaskeeda annagoo oo ah group dhalinyaro ah oo dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida oon ahayn dad qurba joog oo meel kale ka yimid ayaa waxaan daraasaad ku sameynay investment opportunity-ga ka jirta deegaanka. sidii darteed ayaa waxaan sameynay inaan daraasaad ku sameyno fursadaha maalgashi ee ka jira dawladda deegaanka Soomaalida, taasoo aan u aragnay in qaybta industrial sector-ku ay tahay qayb wali curdana oo aan wali la taaban. sidaa darteed ayaa waxaan go'aansanay in aan samayno group dhalinyaro ah oo u dhalatay deegaanka oo xoogsata ah si markaa fikirkayaga aan u soo bandhigno iyo batooshaalka nagu jira. sidaa darteed waxaanu samaynay warshadan baan asaasnay, fikir baanu ku asaasnay, maalna waan ku asaasnay, maantana alxamdulillah halkaasay taagan tahay. ugu dambeyntii wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta ee deegaanka Soomaalida Cabdisalaan Yuusuf ayaa halkaasi ka jeediyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii maalgashiga ee labadii casho ee la soo dhaafay uga socday magaalada Jigjiga, kaasi oo maanta la soo gabagabeeyay. shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagu soo bandhigo fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka Soomaalida iyo siyaasadaha saacideynaya maalgashiga iyo in aan abuurno jawi maalgashi oo deegaanka Soomaalida si gaar ah loo soo dhaweynayo maalqabeennada gaar ahaan geeyiga Soomaalida. waxa daah furay shirka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxa xafiisadka maalgashiga iyo qurba joogta. maalqabeennadii ka soo qayb galay shirku waxay soo dhaweeyeen fursadihii maalgashi ee la soo bandhigay, halka maalqabeennada iyo shirkadihii hore u maalgashaday deegaanku ay soo bandhigeen baraarihii ay kala kulmeen ganacsiga deegaanka iyo caqabadihii ka hor yimid ee u baahnaa in wax laga qabto. gabagabadii shirka waxa ay maalgashiyaashu soo bandhigeen ganacsiyada ay maalgashan doonaan iyo fikradaha ay rabaan inay daraasad mar labaad ku sameeyaan si ay maalgashigaas ay ugu soo diyaar garoobaan. noociisa lagu qabto dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay ganacsato ka kala socday wadamada deriska sida Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Puntland, Kenya iyo shirkado caalami oo ka socday South Africa iyo Turkey. waxa kale oo goobjoog ka ahaa kulankan komishinka dawladda deegaanka dalka Itoobiya, dawladda federaalka Itoobiya maalgashiga. Cabdiruus Maxamuud Awguleed, Ariel TV, Dhagaxle.